xilli ay Zambia dayaxa aaday. Hanka Soomaalidu intaas maleg yahay dhacdo. Wadaagay ma ogtahay in dawladda Zambia ay ku hamiyi jirtay inay dayaxa aado ugana horeyso quwadaha ugu waaweyn adduunka ee Mareykanka iyo Ruushka oo ku loolamayay inay iyaguna dayaxa aadaan. Kaaga sii darane waxaa kaloo la yaab leh in ayba ku hanweynayeen inay sii dhaafaan dayaxa oo gaaraan meeraha Mars. waxaana uu hankoodu ahaa inay noqdaan kuwo 7 samo ka taliya. Wadaaga haddaad ku cusub tahay channelkeena fadlan subscribe saar sidoo kalena like saar muuqaalkeena. Run ahaantii aad ayuu noo anfacayaa mahadsanidin. Sidoo kale commentiga noogu soo qor haddaad qisada tan weligaa maqashay iyo haddii kaleba. 1964 markii ay Zambia xornimada qaadatay ayaa waxa adduunka fajac iyo la yaab la noqotay markii ay Zambia ugu digtay Ruushka iyo Mareykanka inay ugu hormari doonto safarkooda dayaxa una sii dhaafi doonto xaggaas iyo meeraha Mars. agaasimaha guud ee hay'adda cilmi baarista Zambia Edward Makuku Nicholas weeye ninkii ku hanweynaa inuu calanka Zambia ka taago dayaxa dusheeda kadibna u sii dhaafo meeraha Mars. waxa uu Makuku qorsheeyay inuu kaxeeyo koox tababaran oo isugu jira gabar 17 sano jir ah, bisad ama mukulaal, iyo sidoo kalena baadari kaas oo warbixinta ku sii daray in dadka meeraha jooga uusan ku khasbin inay qaataan diinta Kiristaanka. waxaana ugu magac daray kooxdiisa Afronauts oo uu soo gaabiyay African Astronauts. waxa uu Makuku xooga saaray kuna cadaadiyay dawladda Zambia inay kula garab galaan qorshihiisa ah inuu Zambia ka dhigo wadanka ugu horeeya ee dayaxa taga. Makuku waxa uu bilaabay inuu tababar u sameeyo kooxdiisa uu rabo inuu dayaxa u diro. Fuusto ayaa qofka inta la dhex geliyo buur dusheed laga soo tuuri jiray si uu la qabsado jawiga jahwareer ee hawada sare, sidoo kalena miisaankiisu u noqdo miisaan khafiif ah markuu hawada marayo maadaama aysan haysan qalab casri ah oo ay ku tababartaan. waxaa kaloo cajiib ku ah sheekadan ayaa ah in dayax gacmeedka la dhihi jiray Dukulu waxa uu dhamaa dherer dhan 3 mitir iyo ballac 2 mitir ah. Makukuna waxa uu aaminsanaa in dayax gacmeed ahaan uu ku habboon yahay qorshihiisa ah inuu Zambia dayaxa ku geeyo. sidoo kale Makuku waxa uu caawimaad dhaqaale weydiistay hay'adda UNESCO lacag gaaraysa ilaa 7 milyan oo lacagta Zambiyaanka ah, taas uusan wax jawaab ah ka helin. halkaasna kuma joogsane waxa uu sidoo kale codsaday ilaa 1.9 bilyan Zambiyan ah, mana uusan helin wax jawaab ah. Makuku dhaqaale xumo kaliya ma aysan saameyn, waxa kaloo saameeyay kooxdiisa oo aad u mashquulay kana jeestay arrimihii shaqada iyagoo isku mashquulay. waxaana dhabarjab weyn ku noqday markii agaasima Makuku gabadhii kaliya ee barnaamijka ku jirtay oo uu rabay inuu dayaxa u diro ay uur yeelatay kadibna qoyskeedu ka kaxaysteen. waxa uu Makuku niyad jabay markii Mareykanku dayaxa aaday sanadkii 1969. dhalinyaradii uu tababarayna aakhirkii way ka kala tageen. hankii Makuku ee ahaa inuu Zambia dayaxa geeyo meeshaas ayuu ku baaba'ay, waxaana la geeriyooday sanadkii 1989. Makuku waxa uu ku riyooday 56 sano ka hor riyo ay dad badani mustaxiil u arkayeen, xilli dad badani ay ka fikirayeen maxaanu cunnaa oo gaajo haysay wadankiisa. waxaana dhacdadan ka baran karnaa in fikirkaaga aad ka rumayso si kastoo dadka xilligaasi joogaya ay kaaga aragti duwan yihiin. aanu imaano Soomaalida, hanka madaxdeenu waxa uu dhaafi yahay annaga oo reer hebel ah. dadka ayay colaad iyo dhibaato u dhex abuuraan kabacdina kala qoqobaan. dadkuna waa isku mid, isku dhaqan, isku luqad, diin iyo deegaanba. aqligu ha shaqeeyo. dhacdo waxa uu noqon doonaa barnaamij joogto ah oo aan ku qaada dhigi doono dhacdooyin cajiib ah oo wax ku ool ah. fadlan ha moogaan inaad subscribe saadho, sidoo kalena sheekada haddaad jeclaatay like saar, commentiga hoosena noogu soo qor ra'yiga saliimka ah. hana ilaawin inaad muuqaalka la wadaagto asxaabtaada. ballanteenu waa muuqaalka xiga. wadaagee mahadsanid.